waa waajib inay is-xurmeeyaan labada ruux ee nolosha wadaagaya maxaa yeelay reerku wuxuu ku dhismaa is-xurmeyn iyo kala dambeyn. Haddaba ragow, waxaa wanaagsan inaad xaaskaaga mar kasta u noqotid mid u dulqaata kana qanciya qaladaadka dhexdiina ka dhaca. Fadlan kula dhaqan qodobadan aan hoos kusoo sheegi doono, kuwaasoo kale ah: ha xumeyn xaaskaaga. Xumeyn aad naagtaada xumaysa noocay ahaataba waxay ku reebtaa aano iyo murugo aan weligeed ka bixin. Si fiican u dhaq, si fiican ha kuu dhaqdee. Dareen si inaad jeceshahay iyo inaadan ka maarmin. Nafteeda u raaxee oo raaligeli. Ogow inay xaaskaagu jeceshahay inaad la fariisatid kalena sheekeysatid wax kasta oo aad dareemaysid. Noqonin dhowrsoon oo aan balwad lahayn sida aad iyadaba ka rabtid inay noqoto. Waxaa jira xadiis oranaya dhowrsanaada dumarkiinu ha dhowrsanaadaane. Iska jir inaad xaaskaaga ka masiirsiisid. Ha kusoo hadal qaadin kaftanba ha ka ahaadee inaad doonaysid inaad naag kala guursatid. Hana u ammaanin dumar kale. Ha xasuusin xaaskaaga xumaan iyo ceeb ay samaysay waqti lasoo dhaafay. Gaar ahaan ha ku horsheegin ceebahaasi, hana ku caayin dadka hortooda. Dhaqan iyo diin wanaagga xaaskaaga kaga dayo hadday kugu dhaanto. Imise rag ayaa hanuunay kolkay guursadeen haweeney diin leh oo dhowrsoon. Isdeji, carada iyo xanaaqa iska daa. Haddaad xaaskaaga ka gardarnaatid, ka cudur daaro oo ka raaligeli. Hana seexan adigoo u caraysan, iyana ay murugaysan tahay oo ilintu ay dhabankeeda ku taalo. U mahadceli kuna ammaan kolkay wax mudan in lagu ammaano looguna mahadceliyo samayso. Xadiis uu Tirmidi wariyey baa ahaa: qofkaan dadka ku mahadinin alle kuma mahadiyo. Xaaskaaga ha eedeyn, hana cambaarayn, hana barbardhigin dumar kale ood ku leedahay way ka fiican yihiin ee ku dayo. Dareensii xaaskaaga inay agtaada aamin ku tahay oo aad adigu dugsi iyo dugaal uga tahay duruufo kasta oo ay ka baqayso. Dheelitir jacaylka xaaskaaga iyo jacaylka waalidka iyo tolkaaga. Dhinacna dhinaca kale ha uga eexan oo dhinac waliba xaqa uu kugu leeyahay sii, adigoon dhinaca kale xumeyn. U ahaaw xaaskaaga sida aad jeceshahay inay kuu ahaato. Ogow inay iyaduba kugu jeceshahay waxaad adigu ku jeceshahay. Ibnu Cabbaas radiyallahu canhu waxa uu yidhi: waxaan jeclahay inaan xaaska isugu qurxiyo sida aan jeclahay inay isugu kay qurxiso. Isku day inaad xaaskaaga ka kaalmaysid howlaha guriga. Caasha radiyallahu canha waxay tiri: rasuulku calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa ayuu hawsha la qaban jiray. Salaada waqtigeeda marka la gaarana salaadu u bixi jiray. Waxaa wariyey Bukhaari. Isku day inaad isha ka dadabtid meelaha qaar ay xaaskaagu ku liidato ama lagaga fiican yahay. Waqtigaasna is xasuusi wanaagga iyo waxtarkeedii hore si ay u daboolaan ceebaheeda. Xaaskaaga hadday kugu soo hadal celiso waa inaad dhageysatid ra'yigeeda una dulqaad yeelatid. Deeqsi u ahaaw xaaskaaga iyo carruurtaada. Waxaad u awoodaan ha kala bakhaylin. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: diinaarada waxaa ugu fadli badan kan aad ehelkaaga ku bixisid. Fadlan subscribe saar channelkan, share na ku samee. Mahadsanid.